السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قيمها بدن كسو دواذا جنة الكيفتين كقويسكا وولاشين زهرة عبد الكريم مركلة إيه مقال كالعصب. قصة عن مقال كان كغهر للدون وقصة عبر قادشة مدن سيدان وذوقنا دمانتين عرورت وانمعو الله نوو من ناستي والد كان وحاك سارا حقوق بدن هدو ضيعو الله كل حساب تمي دونو هذا كور هو يا المهيدي انت اي قري كور كغحرتي سوق كآدي وحين قري كغتكتي صدح عرورة ويلكوين وحالو مقعاوي جري أحمد وحونا أهاتو من جر هو يدي سوق اي كسو waqtiguna waa galabgaab albaabka guriga hortiisa ayaa caruur dariska ciyaar bunuuni ku bilaabeen Axmed wuxuu go'aansaday inuu kanjeelka kor fuulo kadibna ka dago si uu ula ciyaaro asxaabtiisa nasiib xumo Axmed intuu ka sii dagayay ayaa birihii kanjeelka korkiisa ka taagnaa waxay ka galeen kaadi heesta Axmed dhulka ayuu ku soo dhacay aad ayuu u dhiig baxay kadib dariskii ayaa isbitaal ula cararay ilmihii kale ee yaryaraana guriga ayaa loogu soo tagay Axmed hooyadii ayaa maqrabadii suuqa ka timid dariska ayaa u sheegay in wiilkeedii isbitaal loola cararay isbitaalka markii ay timid ayadoo aad u naxsan ayaa la weydiiyay sababta ilmaheedu ugu tagtay oo suuqa u aaday waxaana la dhahay soo ma ogid arintan iyo wax ka daran inay dhici karaan waxay sheegtay in suuqa dukaan ku leedahay oo ay galab kasta aado ilmahana sidaa yeeri jirtay weligeeda dadkii aad bay arintaas ula yaabeen waxayna la yaabeen qalbi adeega hooyadaasi way jiraan sheekooyin kale badan oo lala kulmay oo ka tarjumayo dayacaada waalidka ay ilmahooda ku sameeyaan iyagoo aan ugu talagalin sida caruur yar yar oo marooyinka ay ku jiifaan isku duuduubay ayna sidaas naqasku ugu dhagay inta ay hooyadii isdhahaysay dukaanka xaafadda wax ka soo qabso waxaan kaloo la kulmay shakhsi ahaan laba cunug oo isla dhalatay oo koronto qabatay intay hooyadu ku maqanayd diriska oo alaab ka doonatay kadibna sheeko u fadhiisatay ilmihii midkii yaraa wuu dhintay kii kalena isagoo suuxsanaya isbitaal loola cararay lama soo koobi karo sheekooyinka naxdinta badan ee ka dhaca guryaheena kana dhasha dayacaada waalidka ay ilmahooda u geystaan waxaan waalidka sidaas sameynaya kula talinaya in caruurtaas wixii dayacaad dartii u gaara lagu weydiin doono ogow haddii caruurtaada dayac dartiisa dhibaato u gaaraan murugada ka dhalato si sahlan kaagama hari doonto oo weligaa waa iscanaanin doontaa xiriirka aad la leedahay lamaanahaagana ma wanaagsanaan doono oo raad bay ku reebaysaa